madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Xamse Cabdi Barre inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Xamse Cabdi Barre waxa uu ka soo jeedaa beesha Ogaadeen, waxa uu hore u ahaa xoghayaha guud ee xisbiga UBD ee hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wuxuuna sidoo kale soo noqday gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland kadib markii la dooranayay madaxweyne Axmed Madoobe. Xamse Cabdi Barre ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda beesha Ogaadeen ee xilkan loo magacaabo. sidoo kale waa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee aan qurbaha ka imaanay xilkan loo dhiibo. ila wareedyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Xamse ku doortay inuu yahay qof u yaqaan ayna muddo soo wada shaqeeyeen, taasi oo yareyn karta khilaafaadka ka dhex dhasha labadooda. waa kuma Xamse Cabdi Barre. Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo, gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. waxa uu dhashay horraantii sanadkii 1970. waxbarashadiisa asaasiga dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ka soo qaatay gudaha dalka. jaamacadda heerka koobaad waxa uu ka soo qaatay waddanka Yemen, halka jaamacadda heerka labaad uu ku soo qaatay dalka Malaysia. hadda waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa la soo doortay Jubbaland, waxaana xildhibaankii ugu horreeyay ee meel laga soo doortay Jubbaland, iyada oo doorashadiisu ay dhacday 28 Diseembar 2021. waxa uu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta UBD ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo horey uga soo noqday xoghaye. inkastoo uu shaqooyinka kala duwan ay ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya, magaciisa waxa uu si weyn u soo shaac baxay markii uu noqday gudoomiyihii guddiga doorashada ee Jubbaland intii u dhaxaysay sanadkii 2019 ilaa 2020, markaasi oo dib loo doortay Axmed Madoobe. intii u dhaxaysay 2014 iyo 2015 waxa uu ahaa la taliyaha dhinaca maamulka u ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ee xilligaas Xasan Maxamed Xuseen Moongab. howlaha kale ee uu Xamse soo qabtay waxaa ka mid ah in uu la taliye sare ka soo noqdo wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaaleynta.